degmada Jallaqsi waa degmada kaliya ay ka shaqeyso lacagta shilinka Soomaaliga marka loo fiiriyo gobolka Hiiraan. Wadatashi ay sameeyeen maamulka ganacsatada iyo culamaa u diinka ayayna ugu suura gashay in uu ka shaqeeyo shilinka Soomaaliga maadaama beledweyne Buulaburde iyo magaalooyin kale aynan ka shaqeynin lacagta balse ayaga dhibaatada ugu weyn ee haysata waxa ay tahay dadka ganacsatada yaryarka ah ma haystaan goob ay qorraxda iyo roobka ay ka galaan. Waa magaalo yar oo soo kabanayso dhanka horumarada xoolaha waxaa lagu kala iibsanayaa qiimaha shilinka Soomaaliga. looda gurunka sacab maaragtay hadii ilaahay hilibka ilaa 6 ilaa 5 iyo bar sidaas asagana la gadaa qaalmaha yararka ilaa 4 iyo 5 afar saas la kala gadaa xoolaha beecood hadda sidaas maartay ku haynaa dibiga birimada oo dibiga weyn oo birimada 12 saas la gadaa oo milyan kaashi shilin Soomaali. sidoo kale dadka waxa ay qudaarta ay ku iibinayaan shilinka Soomaaliga iyagoona qorraxda ka harsanayo dalad ay gacantooda ay ku hayaan waxaana dawladda federaalka ay ka codsanayaan in loo dhiso hool weyn oo ay ku ganacsadaan. kawaan ma qabno meel qudaarta ku gadana ma qabno haddaad wax noo qabanaatiin oo meel wanaagsan oo sharaf leh noo dejinaysiin sidaan aad naaga jeedin waayeen dawladda waxa ka codsanayaan inay soo caawiyaan. gudoomiyaha degmada Jallaqsi Maxamed Nuur Cagajoof ayaana waxa uu faahfaahinayaa qaabka uga dhaqan galay lacagta shilinka Soomaaliga degmada Jallaqsi. waxaan kaloo ku maareynay inaan arintaas aniga aan tashano inaan aniga midowno culamaa u diinka ganacsatada odayaasha dhalinyarada waxgaradka dhan degmadan iyo maamulku waxay arintaas marka iska gacan siiyeen in shilinka Soomaaliga lagu dhigo. bidnal kariim haddana waan ku dhageynaa waan ku dadaaleynaa dadka kale Soomaaliyeedna waxa leenahay shilinka Soomaaliga ee la waayay waa Soomaaliya la waayay shilinka Soomaaliga oo la waayay waa wadaniyada la waayay waxa la marka shilinka Soomaaliga ha lagu dhagaan leenahay. gudoomiyaha ayaana waxa uu dawladda federaalka Soomaaliya dawlad goboleedka Hirshabelle iyo hay'adaha caalamka uu ka codsaday in loo dhiso xarumaha maamulka suuqa qudaarta iyo hilibka garoonka kubadda cagta iyo buundada uu ka muuqdo burbur lixaad leh isagoona sheegay in dadaalka buundada oo hadda uu socdo cid allaale iyo ciddii kala qayb qaadanaysana ay soo dhaweynayaan dhismaha buundada. waxaan halkaan rabnaa inaan uga faa'iideysto fursadan aniga waxa aad nooga xun kawaankii degmada Jallaqsi uu naga burburay dadku meelo bannaan ay ku ganacsanayaan waxaan codsanaynaa inay kawaan nool dhiso waxaan codsanaynaa in mataqaanaan helno meelal hoolal oo shirarka ah waxaan codsanaynaa sida xafiisyadii degmada Jallaqsi loo dhisay xilligii hadda aniga naga horeysay IOM ay dhistay kawaanka waa u baahan dadka meelo bannaan ah ayay sida hadda aad arkayseen ay runtii ayagu naftooda ay ku ganacsanayaan culays sidaas oo dhan waxaan ka codsanaynaa hay'adaha samafalka maamul goboleedka Hirshabelle madaxdiisa iyo dawladda federaalkaba in arrintan naga soo gaaraan waxa kale oo naga burbursan dhiina ku arkayseen ee hadda contribution loo sameeyay ee aruursi loo wado oo loo diyaar galowaa buundada degmada Jallaqsi ee ayaduna aad u daxalaysatay halisna ah hadii biyo baxa kale ay soo timaado halisteeda haddana dadka shacabka oo aragtay waxay diyaarsanayaan waxaan leenahay idaasna in gacan nagala siiyaan codsanayna. Iskriyaali raage warbaahinta qaranka Buulaburde.